السلام عليكم أدبردي السلام يا دمان أصحاب تكحران يوتيوب channel كسولب official ومركلة iyo asxaabtii kala soo hadli jirtay channel-kan oo soo laabatay caawa waxaynu isleegi doonaa hadalhaynta social media barnaamijka aynu bixinay aynu marba qodob ka soo qaadan jirnay isagoo in muddo ah moodayno hakad naga galay iswaa jiray awgeed ka caawino qodob kaga hadli doona laakiin tan qodobkaasi soo qaadan sulubay ila jooga sulub official horta marka hore soo dhawow official waa naanaysta magaalada marka hore loo yeero sulub waxaa tirada mar walba waa soo laabtay kelmadaan kugu naanaysnaa weeyaan sulub soo laabtay caawad dabdhab soo laabatay oo dhex taagan tahay channelkii lagu soo qabtay bal maxaad ku maqnayd waayahay horta waad mahadsan tahay nasteexo marka koowaad iyo marka labaad ba soo dhawaada asxaabta Sulub family meel kasta adduunyada joogtaan waa tiimkii aad hore u taqaaneen idila joogay dib soo laabtay muddo fara badan baan runtii YouTube ka maqnay mashquulka adduunka kama dhamaado waxaan ku mashquulsanahay sidii aan usoo sameeyay bal goob aan wax ku soo gudbino alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu noo soo afmeeray goobtii waan diyaarsanay muuqaaladuna waxay noqon doonaan taxani hadda laga bilaabo aadiya waayahay barnaamijkeenu caawa isleegeena wax weey barnaamijkii hadalhaynta social media toddobaadkan waxa soo qaadanaya qodob aad u xiiso badnaa oo inta badan dadku ay wareejinayeen qodobkaas wuxuu ahaa nin caruusa Sulubow caruuska markuu arooska yimaado waxa darka jirtay caruus iyo caroosad yaani loo dabaaldegayo oo maalinta iyaga oo loo sacabinayo oo hore u aragtay horta caruus intuu soo istaagay dadkii halganka u galay ee haday tahay arooskiisa ka qayb qaadashadiisa ehelkiisa labada dhinacba intuu soo istaagay oo mikrofoonka qaatay dadkaasi mahadnaq soo jeediyay may horta ma arag inta aan joogay oo aan aroos ama anigu aan tagay ama aan social media ka arkay ma arkin sida caadada inoo hayso Soomaalidu badan habsad taqaan wax kamid caruuska iyo caruusada inay loo diyaariyo meel aad u qurux badan laba kursi oo aad u diyaarsan oo loo soo dhigo fadhiistaan kadibna iyaga loo ciyaaro maadaama ay habeenkoodii tahay laakiin si wali ma arag nin habeenkiisa arooskiisa intuu mikrofon qaatay bulshadii joodiga dheer la soo gashay u mahadcelin haddaba imkay dhacday ninkaasi waxaan oran karnaa ninkaasi waa nin legend waa nin ka tagay haddaba Sulubow imika ayaa waxa dhacday nin dhalinyaro ah oo guursaday habeenkii qalgalkiisa inuu maxaa dhadaanay dadkii arooskiisa soo qaban qaabiyay waqtiga badan soo galiyay ehliya asxaab leh inuu mahadnaqo ninkaas waa nin aad u professional ah waa nin xariifa yani wuxuu dareemay faa'iidada ama muhiimadda ay mahadnaq u leeyahay ma garanaysaa qabiyad marka khudbadiisu way ka badnayd mahadnaq bal marka hore daawadayaasha ku xidhan Sulub official baa leenahay nala soo daawada caruuskan iyo khudbadii uu ka jeediyay arooskiisa wixii kale faalaana waan isku iimaneynaa badan ifraax maxamed xasan fatuul loo yaqaan aan caawda dalab galo iyo ay ku faraxsan yihiin waalidiinteeda qofka badan hawlkan ku sugan xafidallahu fi dunya wal aakhirah waan ugu mahadcelinayaa labada ehelay ay soo gartay inay siiyaan labadan lamaane fiiskaga cadmada aniga iyo xaajiyadeyda waan ugu mahadcelinayaa sida ugu badan waad nala aragteen muuqaalka aadka qurux badan kulli muuqaalkan waa in qof meel gaar ka duubay mobilka ku duubay de markaad aragtid runtii wax ka duwan aroosidii hore baad ku arkaysaa waxaad dareemaysaa mahadnaq faa'iido leh qofka aan bili aadan ku mahadnaqin qofkan bili aadan ku mahadnaqin ilaahayna uma mahadnaqo rasuulka yiri ma fireeya runtii aad bay u qurux badan tahay markaad meel gaadho dadkii magaranaysa kula soo jibaaday inaad mahadnaq awadaad mariso bal waxaad la wadaagtaa daawadayaasha nooca ay halayd khudbada dadka u jeediso waayahay laakiin se inkastoo ay jilin tahay waa inaan goobtii iyo maamuusadii laakiin bal adigu ma way ka soo qaad habeenkii ay tahay magaranaysa arooska anoo ninkaas magaranaysa waxa wanaagsan uu sameeyay wanaagana waa la iskaga daydaa kaga dayanaya waxaan oran lahaa horta bulshadu saasay ku soo wada eegaysaa qaybtii magaranaysaa arooskaaga shaqaalihii kuwii DJ-gi familkii gabadha familkii magaranaysaa aroosadii baag fadhida dee waad arag saasa loo soo wada eegaya afkiisa waxaa ka soo baxaya la sugay marka haddii kolley mahadnaqaas uu ku soo wada ururaya سقطة إن هذا
khashaafadahan iyo computerkan iyo waxa ay yihiin Dadkii. dadkii aroos ka soo qayb galay ilaa dadka hadda way koobnayd ma garanaysaa hadda wuxuu qodbadaynaya arooskeedii laba noqonaysaa moogtahay isagu wuxuu marna dadku mahadnaqay marna isagu wuxuu sheegay hadba qofkii ma garanaysaa xaaladii adkaayay markuu soo arooskiisa iyo la sii ma garanaysaa waxa soo qabtay qofkii ka qayb qaatay in arooskaas amaanta quruxda badan ay dhacdo oo marba uu magacaabay marka isagu kulay dareen rasmi ah laakiin ana waxay hal dheeraya asoo asayku waadagaya wana ku guuri halka studio-yaha aynu ku sugannahay wixii qalab yaalo oo dhan waa dadkii ka soo qayb galay arooska ma garatay adigu arooskii baa tahay marka waxaad sheegaysaa khudbad dhinacay familka gabadha familkaagii aroosadii hal kuurkiina ka hor yani wanaageedii ka dhaxeey maanta waxaad yada ka hataa wuxuu sheegayaa arooskii waxa laga filan doono wuxuu leeyahay labadayda famil khaasatan familka gabadhayda ka soo guursaday waxaan idin ballan qaadayaa inaanay gabadha magaceeda soo bartaa ku daray inaanay hiblaayo aanay iga soo caban doonin inaanay iyadoo xanaaqsanaanay gurigiina kusoo noqon doonin inaan farxad mooyaane aanay dhibgala kulmi doonin ballanqaad buu sameynaya familkii ma garanaysaa si khudbad ballaaran baa lagaa doonayaa baasha bilow khudbad ballaaran ma soo jeedin karno waxaan kusoo jeedin kareen wixii waxna wax la jilayo waxna waa wax ma garanaysaa dareenkii rasmiga ah waa ku ka imanaya oo wixii aad soo marto dhan baa ka soo bataacaya marka waxaan ku joojinaa taas ku joojinaa ka dhaafin maayo waa tahay kaasoo waxa leenahay maalinta arooskaaga war khudbad wanaagsan oo tan hadda halkaad ka jeedisay ka ballaaran soo diyaarsay aad ku khashifmine muhiimadda intaan bay ahay kulay barnaamijkana fikirkana sadex iska lahayd marka hore waxaan raashin soo jeedin laakiin igu gaaday barnaamijyada insha Allah waxay noqon doonaan taxane sidaas iyo nabadgelyo